بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا أن كهضلينا وحكو سابسن يهي ظلمي حارانتنمد كيسا iyo qofkii waanadaasi iyo inuu dulmigu xaaraan yahay ku qanci weyda oo u malaysa inay dana ku gaarayso inay wax dulmiso nihaayada iyo meesha ay ku dambaynayso si qof walba uu ogaado inuu toosnaaday in asaga dantiisa ku jirto ummadoo dhan danaheedu isku wada xiran yihiin markay ummaddu wada hagaagto ayuu qof walbana wixii uu rabay ayuu ka dhex heli karaa. dulmigu wuxuu u kala baxaa saddex qaybood. dulmi waxaa la yiraahdaa ilaahi ma dhaafaayo, ظلمنا إلهي ودافعيا، ظلمنا إلهي كم تجايو. ظلمنا إلهي وسندافينين والشرك جام وقال لماذا أو إلهي ويري إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ظلمنا إلهي يعني ودافعينا وظلمنا أما وذنبنا ودحيا إلهي يأدون كيسة وحقوق إلهي أو كلئة أيوقف كاني وحكى علي حق بن آدم أو حرير لا مجرته. إلهي سفوين كيسا أيها وحكمنا إنه نحريس بدن يهي ورحمتي وسعت كل شيء إنه دم داف بدن يهي وإني لغفار لمن تاب. تعالى مرك إلهي سبحانه وتعالى أدون كيسو ويسقط عفا تسامح أي حقوق إلهي وبدنتها وقفك متيستا وإلهي بريا وتوبت كان إلهي وضعفا. ظلم إلهي وسنمرنا ديني من أيا جرتا ظلم يسوحو يهي وظلم الضومها لحظة أيوا إس ظلميان يعني مد أيا أود إس بداية markuu ka fiiriyo dhinacyo marka asaga u muuqata inuu dadka wax u geysan karo ayuu dulmi sameeynayaa. qofkii la dulmiyay marka maadaama loo awood sheegtay ilaahay iyo asna baryaaya oo arintiisa u gudbisanaya oo fawdu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. arinka ilaahay ayuu bandhiganaya, gacanta ayuu kor u taaganaya, ilaahay ayuu baryaaya, ilaahay ba u jawaabayo. ilaahay wuxuu ku dhahayaa qofkaas la dulmiyay la ansurannaka walaw ba'da hin, muddo kadib ha ahaatee waan ku gargaaraya. qofka xumaatada sameeyay ama dulmiga sameeyay oo dadka dhibay asaga waxa laga yaabaa inuu markaasi dadka uu dhibaayo ama uu dulminayo tabardaridooda markuu fiiriyo inuu isleeyahay dadkan wax kaaga imaanaya ma jiro, xilli ay ku soo gaaraan in adiga talaabo ka qaadaana kuma muuqato xilli dhow ma aha. markaas marka uu ku sii kibro inay maalmo arintu u mamartay oo sida uu doono uu yeelayo, laakiin wuxuuna garanaynin asaga dhibaatada uu geystay ee uu malaynayo inay saan ku sii soconayso inuu qofka yani madluumka qofka uu dhibaatada u gaarsiiyay inuu xilliyo saacada mustajaab dacwo arintu ay tahay inuu ilaahay uu baryaayo, taas oo keenaysa qofkii u maleeynaayo inuu fakanayo inuu san fakanin. saasa nin shaacira wuxuu yiri la tadlimanna idha ma kunta muqtadiran fadhulmu yatika uqbahu bin nadami tanamu aynaka wal madlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu allahi lam tanami. yani hadii awoodaado ama tabartaadu ay ku sheegto inaad dadka aad dulmiso waxaad xusuusataa ilaahay awoodiisa. sababtu maxay tahay dulmiga aakhirkiisa ama nihaayadiisu waa khasaaro ayuu ku dhamaadaa. sababtoo ah qofkii yani dhibaatada u geysatay ee dulmisay ayaa hurdaynin oo adiga asbaab aad ku samaysay daraadeed iyo xanuun aad u soo jiiday daraadii ayuu la hurdila yahay. adiguna waxaa laga yaabaa inaadan waxaasba ogeyn oo iska saaxatood iska hurudo. waxaa isku soo beegmaya marka madluumkii oo aan seexanin oo xanuunkii qofkan uu daalimka ah uu ku sababay la seexan waayay iyo ilaahay oo sifooyinkiisa ay kamid yihiin inuu basan seexanaynin. ilaahay Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. ilaahay hurda ma qabato. marka wal madlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu Allahi lam tanami. madluumkii uu soo jeedaa uu ku habaaraya, ilaahayna ma seexdo, ilaahay ducadaas uu aqbalaya. ilaahay xadiidu qusbu xukuud wa izzati wa jalali la ansurannaka walaw ba'da hin. sharaftayda weynanka ku dhaartay qofkan la dulmeeyo waan ku gargaaraya. nabiga sallallahu alayhi wasallam Muaad bin Jabal oo meel u diray wuxuu kula dardaarmay ittaqi da'wat al-madlum. qofka laga gardaran yahay habaarkiisa iska ilaali, maxaa yeelay asaga ilaahay xijaab uma dhaxeeyo, toos ayaa looga aqbalaya. marka dulmigu saa ayuu dhib badan yahay. dhanka kale qofka dulmiga sameynaya oo maalmo ay isugu yara aadan tahay oo amarkiisuna uu soconayo awoodiisuna ay fulayso wuxuu la mid yahay sida neefka markuu bakhtiyo oo kale. neefku markuu bakhtiyo maalmaha koobaad wuu bararaa, markii la iska jiido oo banaanka la dhigo neefkii wuu weynaadaa inta aan la gaarin inta uu dilaacayo. dilaaca ka hor marka bararkaas iyo weynankan oo neefkii intii uu ahaa in ka badan ay ku darsantay caafimaad iyo fayoobaan ma ah ee waa marxalad dilaaceedu uu soo dhow yahay. kadibna neefkii bakhtiga ahaa ee maalmo banaanka yaalay wuu dilaacaya, markuu dilaacana wuu baaba'aya
qofka dulmiga iyo awood sheegashada u malaynaya inay sii soconayso inta yar ee uu bararsan yahay ee maalmo arrinta ay u tootoosan tahay yuuna ku kadsoomine ha ogaado bararkan iyo arrinta oo yani uu ku sugan yahay ee muuqaal ahaan uga muuqata inuu awood iyo uu sheeganayo inay tahay wax laga daba imaan doono oo ay arrintaas ayada dhammaan doonto qofkaasna inayn shaqadiisu aan hagaagaynin ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay in allaha laa yuslixu camal almufsidiin ilaahay mufsidiinta camalkooda ma hagaajiyo kuwa xumaatada sameeya waxay sameeyaan habeen iyo maalin waxay ka shaqeeyaan sidii ay dadka yani ugu amarku taaglayn lahaayeen waxay u soo jeedayaan si ay qorshe u dejin lahaayeen ay dadka ku cadaadiyaan waxayna ogeyn arrintaas ay samaynayaan inay ayaga kusoo noqon doonto qur-aankuna in badan arrintaas ka sheekeeyo ilahay wuxuu leeyahay qad makara aladiina min qablihim kuwa hadda jooga ee dhaalimiinta ah kuwii ayaga ka horreeyey ayaa shirqoolla maleegay fa ata allaahu bunyaanahum min alqawaacid ilaahay baa wixii ay sameeyeen hoosta iyo asaaska uga yimid fakhara calayhim isaqfu min fawqihim waxaa ku soo dhacay saanqaafkii kore ama daboolkii kore ayaa ku dhacay wa ataahum alcadaabu min xaysu laa yashcuruun cadaabkuna wuxuu uga yimid meel ayna filaynin yani waxaa taarikhda soo maray qof walba wixii uu dadka ku dhibo ayaa ugu dambaystana natiijadiisu ay noqotaa fircoon tusaalaha markii loo soo qaato wuxuu ku faanay inuu biyo haysto wanaadaa fircawnu fii qowmihi qaala yaa qowmi alaysa lii mulku misra wa haadihi alanhaaru tajrii min taxtii afalaa tubsiruun wuxuu uhi webiyadan guryaha aan deganay hoostooda durduraaya ee quruxda badan mise uma jeedaan mulkiga masar inaan anigu aan haysto biyahaas ayuu ku faanayaa laakiin markii dambe muxuu ku dhintay wuxuu ku dhintay isla biyihii uu ku faanayey unbuu dhanka kale ilaahay ku dhex riday xataa idaa adrakahu algaraqu maanshadii markii ay helashay fircoon qaala aamantu anahu laa ilaaha ila aladii aamana bihi banu israa'iila wa ana min almuslimiin wuxuu yidhi wixii reer banu israiil ay rumeeyeen ayaan rumaysana muslimiinta ayaan ku jiraa markaas ilahi wuxuu ku yidhi alaana ma hadda ayaad muslimiintan ka mid ahay dhahaysaa alaana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin adoo horey u caasiyey oo mufsidiinta ka mid ahaa miyaa hadda markay duruufi ku qabatay ayaa saas dhahaysaa marka qofka marka uu fursadda haysto ee uu sii wadi karo dulmigii hadduu dulmi ku jiray hadduu ilaahay dartii intuu isaga daayo uu toobad keeno waa loo dhaafayaa wixii hore oo ilaahay subxaana wa tacaala waa kafuururaxiim dadka xataa uu ku xadgudbay ilaahay hadduu qof fiican oo toobadiisu ay nasuuxo noqoto oo ay u hagaagto xaqunaaskii lagu lahaa xataa marka dambe markii lagu xisaabiyo waxaasaa lagu leeyahay la yidhahdo ilaahay baa ka gudaaya oo ka dhiibaya laakiin haddii uu sii wado oo su u sii wado xilliga ugu dambaysa ilan dhaalimka waa la qabtaa oo xilliga ugu dambaysa natiijadiisu meel xun ayay ku dambaysaa sida qur-aanku in badan uu ka sheekeeyey suurat huud oo kale yaa waxaa laga soo sheekeeyey taariikhda wixii ummado soo maray oo dulmi iyo awood sheegasho ku dulminayay muslixiintii iyo dadka alukhayrka ah nabi nuux ayaa laga soo bilaabay qisadiisii qoomkiisii waxay ku dhammaadeen yani in biyo la qaadsiiyey kuwii ku xigay reer caad sidoo kale si lamid ayay noqdeen waa la halaagay reer thamuud sidaas oo kale yani taariikh dheer ayaa soo martay oo sidaas ay tahay intaasoo dhan markuu qur-aanku uu dhameeyey oo laga sheekeeyey yaa ilahi subxaana wa tacala wuxuu yidhi wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya daalimatun ina akhdahu aliimun shadiid sidaas ayay ilaahay qabashadiisu ay tahay haddii uu daalimka uu qabto qabashadiisaasi waa mid adag oo la adkaysan karin sida taarikhdaasba laga soo sheekeeyey marka qofka yani haddii uu xilliga la qabto uu yidhahdo waan toobad keenaya oo markaa iska dhigo qof wanaagsan inuu yahay wakhtigaasi lagama yeelo dadka jidka gale ee burcad ee shuftada ah markay dadka dhacaayaan ee awood ay leeyihiin haddii marka dambe intii yani warkooda la helo ciidamo loo diyaariyo ayagoo falkii ku dhex jira oo dadkii dhacaaya lagu qaqabto ama maxay ahayde yani ayagoo meeshii ay weli ay xumaatada ku sameeyeen jooga lasoo qabto haddii markii ay kusoo dhacaan yani awooddii ka awood badneed oo la qabto ay yidhaahdaan waan ka toobad keenayna burcadnimada oo mar dambe u noqon mayno xilligaa asagaa lagama yeelo ilahay saasa wuxuu markuu ka hadlayay xiraabada iyo dadka jidka gooye oo xukunkooda la sheegay sida laga yeelayo ayaa wuxuu daba dhigay ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim kuwa toobad keenay inta aan loo awood sheeganin ka hor oo qofkii asaga oo aan loo awood sheeganin oo dembigii sii wadi kara hadduu isgarto wadadan uu hayaay inaysan ahayn wadadii saxda ahayd ee meel gaarsiinaysay oo uu ka soo laabto oo wadada saxda uu ku soo dhaco waa loo dhaafaya laakiin hadduu saas yeeli waayo markii la qabto hadduu yihahdo waan toobad keenayaa toobadkeenkaasi waxba kama jiro sababtoo ah haddii xataa yani hadda ma sii wadi karaa gacan buuba ku jira waaba la qabtee hadduu yidhahdo waan sii wadayaa dembigii xataa awood uu kusii wado meel awoodii bay ka dhammaatay marka toobadu waxay furan tahay inta qofka ayna awooddu ka dhammaanin hadday mar awooddu ay ka dhammaato oo uu gacan galoo la qabto hadduu yihahdo waan toobad keenayaa toobad tabar weyday ayaa la yidhahdayo taas laga yeeli maayo
marka intayna halkaas gaarin oo marxadaas ayna gaarin qofkii xumaan samaynaya oo ay naftiisu u been sheegtay oo awood markaa u muuqataay oo isku halaynayay oo u malaynaya inuu kusii socon doono dib ha isu muraajiceeyo taariikhda ha ka faa'iidaysto waxa taariikhda looga sheekaynayo ummadii hore loo sheegayo waxay tahay ummadaha gadaal ka imaan doona inay yani iskaga ilaaliyaan khatartii ay galeen oo ayna halaagsamin fircoon ilaahnimo ayuu sheegtay awood badan ayuu lahaa awooddaas iyada ah ma inay sii soconin markii dambe waa la joojiyey oo lagama yeelin inuu sidii uu doono uu sii yeelo marka yani markuu yidhi waan ka toobadkeenayana waa laga diiday oo taas iyada lagama yeelayo ayaa la yidhi marka waxa isweydiin leh awoodda meesha uu ka gaaray yaa islahaa sidan ayay wax noqonayaan marka markii biyihii ay qaadeen oo webigii lagu riday ilaahay wuxuu heli karay in biyuhu ay hor u qaadaan sida ciidankiisiiba ay u qaadeen oo ciidankiisii biyihii ayaa qaaday waxbana lagama arago saasay ku dhinteen biyihii ayaa la tegey laakiin fircoon keligiis ayaa la ataagay waa laga soo bixiyey biyihii banaanka ayaa lasoo dhigay markaasa ilaahay xikmadda uu banaanka usoo dhigay fircoon markii uu dhintay kadib yaa qur-aanku wuxuu inoo tilmaamay xikmadda laga leeyahay ilahi wuxuu yihi falyawma maanta nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aayatan waina kaiira min annaasi can aayaatina lagaafiluun maanta badankaagii ayaan banaanka usoo bixinayna oon soo dhigayna maxaa yeele hadaan saan la yeeli lahayn dad ayaa u qaadan lahaa inuu hawlo kale meel kale ugu maqan yahay laakiin marka asagoo la yaqaanay banaanka lasoo dhigay waxay fahmayaan ilaahnimadii uu sheeganay inay been ay tahay naftiina ay ka baxday saasa waxaa l jasadkaaga banaanka lasoo dhigaya saas waxaa loo yeelayaa litakuuna liman khalfaka aayatan dadka kaa dambeeya ee awood sheegasho iyo dulmi markaas ayaga ay samayn karaan u maleeya inay wax ku gaarayaan si ay yani aayad ugu noqoto oo ay hawsha ay ku jiraan ee xumaatada ay isaga daayaan laakiin haddana ilahay qur-aanka wuxuu noogu sheegayaa waina kaiira min annaasi can aayaatina lagaafiluun in badan oo dadka ka mid ah aayaadkan ilaahay way ilowsan yihiin kuwa saasoo kale u ilowsan ayagana waa la baraarujiya waxaa la yidhahdaa khuliqa alinsaanu min cajal insaanka ayaa wuxuu ka abuuraya degdego wuxuu rabaa qofkii xumaatada samaynayay markiiba in la qabto oo meesha laga leexiyo ilaahay xikmadiisuna meel ayay ku socotaa oo ah qofkan waxaa laga yaabaa dad inay ku siran yihiin ama ay ku kadsoon yihiin oo uu qof fiican uu leeyahay dadkan waxaa bini aadamka layaab ayay leeyihiinoo ummadaha kale marka la dulminaayo oo qofka asaga aynu dulmigu kusoo jeedin wax mushkilaa inay jirto uma arkaayo wuxuu leeyahay arrintu waaba iska caadi dadka wax sheegsheegaya maxay la hadlaayaan len asaga ayuuna dhibaato una haysanin laakiin dadka kale ayay dhibaatadu ayay ku maqan tahay marka markii la gaaro marxalada daalimka la qabto yani aayad in laga faa'iidaysta la rabaa oo la yidhaahdo kii kaa horreeyeyba jidkan ayuu maray wuuna halaagsameye ka joog waina kaiira min annaasi can aayaatina lagaafiluun marka degdega dadku ay jecel yihiin in markiiba daalimiinta la qabto ilahay xikmadiisa wuu u yara kaadiyaa waxaa loogu sugayaa in ay dadka ku fidnaysan ee qof hagaagsan u malaynaya in intuu dulmigii ayaga kula soo jeesto oo qof walba gurigiisa uu ugu galo daalimku ilan daalimku mar hadduu dulmi u barto dadka inay u kala sokeeyaan iyo inay u kala shisheeyaan waxba shaqadiisa ma aha asagoo dantiisa sida uu markaa u arko ayuu ku soconayaa cid walba ciddii uu is yidhaahdo adig dantaaday ka hor imaanayaanna ilaahu muu qofka ugu dhow u ahaado wuu ku soo jeesanayaa nabiguna wuxuu yiri sal allahu alay wasalam man acaana daaliman calaa dulmihi qofkii qof gardaran marka horeba gardarada ugu kaalmeeya sallad allahu calayhi ilaahay ayaa isaga dib ugu sallida markii dib loogu sallido oo dulmigii meel walba uu gaaro ayaa dadkii waxay dhahaan kan yaa naga qabta markii halka ay soo gaarto oo laisla wada qiro inuu qofkaani in qabasho uu mudan yahay ah markaasaa la qabanaya saasaa ilahay wuxuu yidhi khuliqa alinsaanu min cajalin sauriikum aayaatii falaa tastacjiluun anaa aayadahayga idin tusaaye daalimiinta cibro wax lagu cibro qaata ayaa ka soo muuqan doonee ha degdegina laakiin waxaad ogaataan qaacidada ama xeerka ah wadada xuni ciddii martaay natiijadeedu xumaan ayay ku dhammaataa laguma faa'iido ina allaha laa yuslixu camala mufsidiin aayad kale wuxuu lehay inahu laa yuflixu daalimuun daalimiintu ma liibaanaan ma guulaysanayaan marka wax kasta oo xumaan oo la dhoodhoobo si kasta oo loo qurxiyo si kastaoo awood bini aadam loo huwiyo mar haddayna wuxuu hagaagsanayna ahayn maalmo ayay joogayaan kadibna way tegayaan waxa wanaagsan ee khayrka ahee wanaagga ka shaqaynayana si kasta oo la isugu daya in la qariyo oo dadka muslixiinta ahlu khayrka ah loo cadaadiyo oo bulshada looga dhex takooro oo loogu diro dadka oo laga dhiga dad meel xun u socda oo ay dadkii loo caayo xaqiiqada markii la fiirina wanaag iyo khayr inay ka shaqeeyaan ay tahay si kasta oo loo yidhaahdo ugu dambaysta waxaa ku soo haraysa oo natiijadu ay noqonaysaa fa ama azabadu fayadhabu jufaa'an daad xoorta iyo wixii asal aan dhulkan ku ahayn oo dulmi ku dhisani fayadhabu jufaa'an wuu iska tegayaa wa amaa maa yanfacu nnaas fayamkuthu fi lardi waxa dadka anfacaaya
oo khayr iyo wanaaga iyo ummadda maslaxadeeda ahna way waarayaan oo dhulka iyaga unbaa u haraaya saasaa taariikhda markii laga sheekeeyo kuwa awood isbidaayey iyo ambiye ilaahay iyo dad muslixiina iyo dad saalixiina oo ay u malaynayeen inay yani ay soo afjari karaan oo ay dhibaatayn karaan ayaa dadkii wanaagsanaana way soo hareen kuwii dhaalimiinta ah ee xumaatada samaynayana taariikhda ayaa meel xun ka tuurtay saas daraaddeed qof walba asagoo cid kale aan u danaynayni asaga ha isu daneeyo hadduu rabo inuu baaqi ahaado oo adduunkan sharaf uu ku noolaado oo aakharana meel fiican u tago wanaag ha ka shaqeeyo ciddii sidaas yeeli weydo oo waxyaabo kale intay iyagu iska samaysato dadka ku xadgudubtana ha ogaato kuwo kale oo isaga ku horreeyey oo siisu kale u dhaqmay ayaa taariikhda baal madow ka galay kana tegey aakharana dembiga ay galaan uu usii dhiman yahay marka wanaagga iyo badbaadada waxay ku jirtaa dulmigan inaan iska ilaalino wanaagga iyo khayrkana in aan ku dadaalno taasaa adduun iyo aakharaba ina anfacaysa intaas ayaan mawduuceena kusoo gabagabaynaynaa hada wabillahi towfiiq asalaamu calaykum